مدن وزير halka waxa fadhiya dad tababar ka qayb qaadan doona muddo 10 casho uu socdo oo isugu jira iskaashatooyinka ka jira dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan Puntland nasiib u yeelatay inay maaragtay u noqoto hooygii meeshii lagu qaban lahayd martigeliso iskaashatooyin kala duwan ee dhammaan steediyada Soomaaliya ka jira iyo gobolka Banaadir ayay ka kala socdaan طبعا wakiilo ka socda wasaaradaha steediyadana waa ka mid tababarka doorka Puntland sidoo kale iskaashatooyinkii dhisnaa Puntland ka dhisnaa oo dhan qolo walba wakiil baa ka socda oo uga soo qayb galay tababarka tababarkan wuxuu daaran yahay muhiimadda ugu weyn waxay tahay in kor loo qaado xirfadda maamul ee iskaashatooyinka runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay leedahay xeebta ugu dheer Afrika isla markaasna ay tahay xeeb aad iyo aad u khayraad badan khayraadkuna aanu ahayn kaliya kalluun ay jiraan khayraadyo aad iyo aad u fara badan laakiin tan ka hadlayna maanta ay tahay kalluun sidoo kale markii haddana la sii kala saaro Soomaaliya Puntland waxay leedahay xeebta ugu dheer waana meel taariikh ku leh dhinaca kalluumaysiga oo waxaa jirtay waagi hore kalluunka la isku caay jiray hadda waa la ilbaxay reer bariga ama reer Puntland waxaa lagu caay jiray inay yihiin kalluumaysato laakiin maanta waa la ilbaxay kalluunkii nin cuna iyo nimaan cuninba wuxuu noqday wax lagu faano oo la doono ma aha inaan leeyahay maamul goboleedyada kale ma laha bad ama kalluun ma yaqaanaan laakiin khayraad marka laga hadlayo waa lagu kala badan yahay ahaantii dhibaatooyinkan haysta waxaan filayaa halkan laga hadli doontaa ma si guud galayo oo halkan laga hadlayay khayraadkan uu fara badan yahay kalluumaysigu laakiin inta aynu cunno iyo inta maalinta la iibsanayo kaliya aynu ka isticmaalnaa haddii aynu la soo baxno kalluun fara badan intaynu ka cunno ama ka iibsano inta kale waynu daadinaa laakiin kaliya inaynu suuq dhahno suuqana loo raadiyo waxa ka sokeeya qofka isagoo muxuu qabsan karaa waa la xaniidin karaa waxyaabo kale laga sameyn karaa taalaasna inaan isku dayno oo haddii aynu kalluunka isagoo fresh inaynu dhoofino inaan awoodi karayn waxaynu sameyn karnaa waxyaabo badan oo aynu magaranaysaa aynu ku maareyn karno oo aynu ku gaari karno ama kaga haftoomi karno kalluunka inaynu dhoofino waxaan mar labaad u mahadcelinayaa hay'adda FAO sidoo kale wakiilada ka socda dawladda xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ee gobolka Banaadir waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga shirku ama tababarku uu noo furan yahay waan idin salaamayaa dhammaantiin mahadsantiin salaamu calaykum